guuleed cismaan cabdi oo ah wiil dhalinyaro ku nool magaalada Buuhoodle ahna farsamayaqaan sameeya diyaaradaha ayaa maanta waxa uu soo bandhigay diyaarad uu sameeyay. Guuleed ayaa sheegay inuu diyaaradan dhawaan u doorin doono. qaar ka mid ah wariyaasha oo ku booqday hoyga ku degan magaalada Buuhoodle ayaa la hadlay Guuleed waxaanu dhawaan u filayaa wiil inaan stuudiyo diyaaradan. macallin Caasha Axmed Cumar oo ah maamulka gacanta ku haya Hawa Primary School oo ah iskuul danyarta wax ka baratay caruuraha agoonta ayaduna goobtaasi ku sugnay. Bismillahirrahmanirrahiim aniga magacaygu yahay Guuleed Aadan Cabdi waxaan u mahadcelinayaa wariye Maxamed Xuseen Xasan oo igu soo booqday maanta gurigayga oo ka socda TV-ga caalamiga ee Puntland TV ayaa waxaan uga mahadcelinayaa booqashada wacan maanta igu soo booqday. Guuleed ka warbixin waxyaabaha sameeyay kale waxaan sameeyay marka waxa weeyaan helicopter qubaatiga oo ka cad diyaaradaha loo yaqaan helicopterada oo kale in badan way hawl badnayd marxalada badan la sameeyay laakiin marka fududahay sida ugu dhaqsaha badan oo imka inta hagoogta saran baa u dhiman kursiyaasha caadi handbrake lagu jiiday marka baashka inta lamba kacayso ka saacadii kuwii shidaalka kuwii حوارها تي هودا شيء وحي ويكويالان إن شاء الله ونسكوك عزان تام تركي ونباو مقانية قلب كيف الصداع ونيرير أوباحنا مشرا كوا كوالاش ديارك لاش منشت مشرا كويا كوا هراوي تشران يريراي ودول تشران يقول لكن ويريراي لكن كون وكوي عادي قاعد الراع تشرا لا وقف قاعد تشرا والله وقف قاعد ها لا وقف هي بقول تلك له هي مكان تكنسوين تاعك حق حسن ساعة جبا دال جبا ايرلاين او كلا ولكن كدوان نوعيدو ان Soomaali laga helin haye tanada qadka ku sameeyay way imka dabka ka dhacsan laakiin muu caadi way duushaa inta badan oo remote bay leedahay caadi ay ku duusho inta ku dawanaya maxaad film u diraysaa inay ka soo caawiyaan ama ka dhimaan leedahay waxaan dirsanayaa bulshada ku dhaqan Soomaaliya ama dalka dabadiisa jooga inay iga soo caawiyaan fakarkayga oo aan si waxaan aanu u fakarsanaa inaan imika matalan bas ku samayn karo isku day karayna oo caadi aan u samayn karo laakiin aan qalab haynin marka hadii tan ay ku haagto kale xaqiiq ashan ka tagto markay baashan ku haagto kale garoonka diyaarada caalamiga Ismaaciil Mire magaalada Buuhoodle Guuleed Aadan oo yarka ahaa agoonkii yara oo markii horena aynu ku bilownay diyaarada uu sameeyay yar ahaa iyo qalab wada dhaqaaqayo oo ka sameeyay bateriyo marwaxado iyo waxyaabaha uu sameeyay maanta hankiisa wada aragtaa waxay maraysaa in uu sameeyo diyaarad helicopter diyaarada helicopterka oo ku hanweeyo halkan oo adarkaayo saacadaheedii halka soo jeeso sawiro halkan speedkii diyaaradaha iyo saacadihii iyo wixii weeyaan halkan waxay tahay geed handbrake diyaarada ka sarka kuma handbrake waxa weey laba qof ay qaadi kartaa oo kuraasidii bay leedahay marka qofka bilaadanka markuu han la yimaado waa la sii dirigeliyaa Guuleed wuu dhaafay hadda marwaxad yar iyo baabuur yar wuu dhaafay hankiisu wuxuu doonayaa inuu diyaarada helicopter uu sameeyo diyaaradaas oo imika marka mar la taariyo mar la baqtiinayo laakiin ay ka kala maqan yihiin qalabkii qofku fikradda waa la keenaa qofku fikradda wuu la yimaadaa laakiin waa lagu dhiirigeliyaa oo la sii meel mariya marka waxa weeyaan Guuleed fikraddii wuu keenay laakiin horumarintii ayuu rabaa iyo dhiirigelintii marka waxaan u sheegaynaa maadaama uu yahay wiil Soomaaliyeed oo Soomaali ka dhashay horena aan u sheegay wiil yar oo saacad sameynayay oo guriga cad ee Mareykanka madaxa loogu salaaxayay Guuleed baa baradheeraaday oo maxay horena aan soo bandhignay imikana waxaan soo bandhignay isagoo diyaarad wali qabya ka ah oo helicopter sameynaya marka waxaan ka codsanaynaa Soomaalida meel kasta ay joogto in ay fikirka yar ee Guuleed uu keensaday in lagu dhiirigeliyo wiilka yar waa wiilka yar imika waxa weey ilaa daadiisu waa 16 meelahaas waa darta meesha ay adduunku la marayo iyo qalabka uu sameynayo Xuseen Xasan Cadde raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn.